aan su'aal ku bilaabo. Waa kee dalka Afrika ku yaal ee aan internetka lahayn, aan soo galootigu dhaaxaba tegin, siyaasadda shisheeyaha ka xirxiran oo aan xitaa ganacsi ahaan dunida u furayn. Madaxweynihiisu 32 sano talada hayo ee aan doorashoba ka dhicin. Waxa lagu naanaysaa North Korea-da Afrika. Waa dhab inaad goor horeba jawaabta heshay oo ila tiriya ayaynu muuqeenan kooban ku dul istaagaynaa. Wala waynu horay 8 xaqiiqo uga warinay, haddana bal inala dhugo. Arrimahan qariibka ah ee dalkani kaga duwan yahay Afrika oo dhan. Sababtu waa tan, gudaha caasimadda Asmara waxa ku wada yaala Cinema Embargo, Fiat Allegro gas station, iyo Teatro Asmara oo dhammaantood ah qaab dhismeedkii Talyaaniga ee 1930. Xitaa Cinema Roma ayaa halkan ku taal. Biisada iyo spaghetti-guna waa labada cunto ee Asmara caanka ku tahay. Inta kaliya ma aha raadadka Talyaanigu uga tagay Iracharia oo macchiato, gelato iyo gaarigan qurxoon ee 70-meeyadii ahaa kan loogu yeero Fiatka ayaa weli ku xusuusanaysa Rome. Sida xogtu warisay, Asmara waa cidla aad moodo in dadkii isaga hayaamay oo dalkan loogu yeero mid ka mid ah wadamada ugu go'doonsan dunideena. Xitaa dadkiisu internet ma isticmaalaan, taa oo iyaga dhab uga fogeysay ku xiranka dunida inteeda kale. Waxaad weli isweydiinaysaa maxaa Asmara u tahay Rome-ta Afrika. Inakeen dib gadaal ugu noqon 1938 oo ahayd waagii uu magaaladan ra'iisul wasaarihii waagaas ee Benito Mussolini ugu yeeray La Piccola Roma, taa oo la macno ahayd Roomada yar. Waaga oo magaaladani isaga u ahayd xaruntii uu ka maamulayay wadamadii Afrika ee faashistihii Talyaanigu gumaysanayay. Qaab dhismeedka magaaladan ee u muuqeeg Italina waxa iska lahaa injineer Talyaani ahaa oo inta xambaaray fikradda ra'iisul wasaarihiisa ee Roomada yar yagleelay dhismayaashan ilaa hadda gumaystihii dalkan lagu xasuusanayo. Ogow, qaab dhisme ahaan Asmaradan saaran dacalka badda casi waxay safka hore uga jirtaa magaalooyinka ugu qurxoon qaaradda.